wafdi culus oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug ayaa maanta loo diiday inay booqdaan saldhigyo ciidanka beesha Ciise waxay sheegeen inaysan Soomaaliland doonayn oo ay ciidankooda basaasayaan faahfaahinta ayaan kula wadaagayaa sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda jihooyinka kala duwan ee Laascaano iyo amniga magaalada Laascaano oo si weyn loo adkeeyay sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim ayaa amarkii ugu cuslaa hadda waxa uu siiyay dhammaan ciidanka beesha Ciise ee ku sugan gobolka Awdal iyo dawlad deegaanka Soomaalida kulan degdeg ah ayuu iskugu yeeray saraakiisha ciidanka beesha Ciise hadaba ugaas Mustafa wuxuu ku dhawaaqayaa guluf dagaal oo ka dhan ah Samaroon iyo Soomaaliland faahfaahinta ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale aan ugu soo kordha ayaan saaxiib yaalidiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haday tahay markii kuugu horeysay ku soo waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaadana qaybta commentiga ee noogu reeb soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan aan ku bilaabo qodobkeena ugu horeeya ee ugaaska guud ee beelweynta Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim ayaa goordhow kulan degdeg ah wuxuu iskugu yeeray inta badan saraakiisha ciidanka beesha Ciise ee ku sugan gobolka Awdal kuwa ku sugan Itoobiya kuwa ku sugan Djibouti kuwa ku sugan dawlad deegaanka iyo kuwa xuduudda ku sugan kulanka oo ah mid degdeg ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Diridhabe ugaas Mustafa waxa la soo warinayaa inuu si weyn uga carooday falkii ay dhawaan sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa beesha taagta daran ee Samaroon kuwaas oo la sheegay inay gubeen guryo ay deganaayeen dad rayida dagaalada Soomaalida u dhaxeeyo markii ay timaado xabad ama rasaas waxa ka mamnuuca intaan anigu ogahay in la beegsado dadka baramigeedada ah waxa kamida caruurta haweenka iyo waayeelka waa dad aan hubaysnayn waxna ka ogeyn waxa dhacaya guryihii ay gubeen ciidanka beesha Samaroon waxa uu hooy u ahaa caruur ka yar 7 sano jir muuqaaladan arkay wallaahi billaahi tallaahi hadaad aragtaan calool xumo ayaa idinku dhacaysa guryaha laga gubay dadkaasi ilmo maanta 3 sano jir ah 4 sano jir ah oo da'ada qaangaarnimada aan gaarin maxaa gurigiisa laga gubayaa maxay tahay nacfiga ku jirta iban bahdii aad maanta isleedahay cuniga aabihiis baan ku xanuujinayaa aabihii waa mid adiga kula mid ah oo qor aakii fudhisaban haysta oo jooga Buurta City ama ka dagaalamaya Heemaal ama Bolol ama Xariirka ka dagaalamaya ama magaalada Calimeer ka dagaalamaya hadaad rabtid inaad dadkaasi dishid ama aad la dagaashid doono laakiin caruurtan iyo haweenkan iyo waayeelkan baramigeedada ah oo aan dagaal shaqo ku lahayn halaga leexdo aanu soo laabto ugaas Mustafa marka waxa la leeyahay laba midba uu ku dhawaaqi doonaa sidaan hadda xogta ku hayo laba midba uu ku dhawaaqi doonaa go'aanka koowaad wuxuu noqon doonaa in laga aarsado beesha Samaroon iyadoo aan la beegsanayn horta waxaan idin sheegayaa ninka la yiraahdo ugaas Mustafa maalinku uu falku saa u dhacay oo tuulooyin badan oo beesha Ciise leeyihiin laga gubay ugaas Mustafa wuxuu amar ku bixiyay ciidanka beesha Ciise in aysan taaban karin una dhawaan karin caruurta iyo haweenka iyo waayeelka guryahoodana inaysan gubi karin caruurtaasna aan la handadi karin caruurtaasna aan la dili karin waxna aan la yeeli karin waa gubnimo waa sharaf waa cizi waa sidii lagu yaqaanay oday dhaqameed laakiin ninka la yiraahdo Cabdirashiid Doodi suldaanka guud ee beesha Samaroon arbal haduu nin raga yahay oo oday yahay oo dhaqameed yahay oo uu rabo in mustaqbalka dagaalka la soo gabagabeeyo carwakaas ha soo qabto ragii caruurtaas iyo haweenka guriga ka gubay Cabdirashiid Doodi mucaaridnimadan meel walba uga timid wuxuu ka dhamaanayaa ana idin sheegay wuxuu ka dhamaanayaa oo uu ka gacmo la'aanaya maalinka uu raga soo qabto wax inta ka horeysa wax micnaha shaqeynaya iyo wax laga wada hadlaya ma jirto marka ugaas Mustafa wuxuu sidoo kale u sheegay saraakiisha uu la kulmo inkastoo hordhaca hadda oo kulanku bilow yahay hadana saraakiisha hordhaca uu la kulmo wuxuu u sheegay in beesha Ciise sharaftooda ay ilaashadaan dhulkooda muranka laga geliyay inay soo ceshadaan labo dadka baramigeedada ah oo caruurta iyo haweenku ay ku jiraan in aan la beegsan la handadin la dilin la takoorin guryahooda la gubin 3
in haddii qof dembi lagu helo even ba nin ka tirsan ciidanka beesha Samaroon baa dagaal lagu qabtay in rag way kala adkaan jireen haddii nin dagaal lagu qabto buu yiri ugaas Mustafa haddii nin dagaal lagu qabto lama dili karo lamana handadi karo muuqaana lagama duubi karo ul iyo gobonimo ruuxaas sharaf la dhaaniyo nin raga haddii dagaal aad ku qabatid laguma taagsado sharciga dagaalka sidaan ku aqaanayna nin haddii dagaal lagu qabto waxa ka mamnuuca in lagu yaani taagsiga waxa la yiraahdo in qori la soo duubo oo qori saas xabad lagu hayo iyo in maxay tahay muuqaalo inta la qabto muuqaalo laga duubay waxyaabahaas oo kale dabcan waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii ay sida weyn u diiday beesha ciisu oo ay hore laakiin hore waxa jirtay in muuqaal ciidanka beesha ciise ay askar xabad ku hayaan muuqaalkaasi ugaas Mustafa wuxuu yiri waan ka xumaaday mana rabo yeesana soo laaban dabcan kulanka hadda socdo dabcan qodobadaas lagu saaraya laakiin waxyaabihii ka soo baxa dadka ugu horeeya ee halkan kala socda ayaa noqon doontaan gobonimada Suldaan Cabdirashiid iyo ugaas Mustafa isbarbardhig keebaa kula wanaagsan qodobadana kale ayaynu markana fiirinaynaa waxaan fiirinayaa dhinacaas iyo gobolka Awdal taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug ayaa la soo warinayaa in uu damcay inuu tago saldhig ay joogeen ciidanka beesha Ciise balse loo diiday sargaal sare oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise ayaa warbaahinta wuxuu u sheegay in aysan macquul ahayn munaasabna ahayn oo aysan yeelayn in sargaal ka tirsan ciidanka Soomaaliland uu booqdo xerooyinka ay joogaan ciidanka beesha Ciise dabcan wuxuu u arkaa basaasitaan iyo in dhulkooda la basaasayo laakiin xogaha saxda ah ee hadda soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in beesha Ciise ay diiday in saraakiisha Soomaaliland saldhigyadooda ay booqdaan waxaa jirtay sidaas la mid ah 2 bil ka hor in taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug loo diiday inuu booqdo saldhigga ciidanka beesha Ciise ee tuulada Heemaal iyo tuulada Calimayd waxay Soomaaliland aaminsan tahay in hadda ficiladaasi iyo kuwa kale aysan munaasab ahayn isla markaana ay ka hortagayaan ficil walba oo la doonayo in lagu carqaladeeyo nabadda iyo xasiloonida gobolka ka jirta sidaas la mid ah Soomaaliland maadaama hadda lagu eedeynayo inaysan dhexdhexaad ka ahayn qodobada hortibinta u leh arrimaha waaweyn ee masiirka taabanaya haddana waxa la leeyahay waxa jirta aragti kale oo ay soo jeediyeen qaar kamida isimada dhaqanka dhexdhexaadinaya Soomaaliland iyo sidoo kale iyo beesha Samaroon oo sheegaya in degdeg loogu baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagu xadidayo ciidamada leeyahay waxa ay imaanayaan meelo kamida gobolka waxa jirtay sidaas la mid ah aragti banaanka timid oo sheegaysa in bishii la soo dhaafay ciidanka beesha Reeshaq Isxaaq ee Soomaaliland ay isku dayeen inay basaasaan hal saldhig oo ku yaala koonfurta gobolka Awdal laakiin ciidanka beesha Ciise ay diideen iyagoo aaminsan in aysan xilligan isgeli karin Ciisaha iyo sidoo kale beesha Reeshaq Isxaaq sababtoo ah ugaas Mustafa iyo saraakiisha kale waxay aaminsan yihiin in aysan daacad ahayn isla markaana aysan xilligan macquul ahayn in la arko aragti weyn oo la xiriirta in Soomaaliland iyo sidoo kale Samaroonku ay heshiis ka gaaraan colaada ka taagan gobolka Awdal oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidayso sidaas la mid ah 24 bishii hore ayay ahayd markii sidan oo kale saraakiil ka tirsan ciidanka beesha Reeshaq Isxaaq loo diiday inay booqdaan saldhigyo ku yaala jihooyinka galbeed iyo waqooyi ee gobolka Awdal taasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inay ahayd qorshe la doonayay in lagu kala irdhoobiyo ama lagu kala burburiyo xasiloonida iyo sidoo kale nabadda ka jirta halkaasi si walbaba ha ahaatee is-aaminaadu waa ay dhammaatay waxaadna arkaysaa in dhinacyadu ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo dabcan xaaladda uga sii daraya sida ay aaminsan yihiin dad badan oo aan la hadalnay oo iyagu arrimahan si dhow ula socda kuwaasoo aaminsan in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo khilaafaadka iyo culeysyada ka jira halkaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda uga sii darayso saaxiibayaal waxay ku soo kordha wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb sida u aragtid in xilligan mansab iyo munaasab ay tahay in caruur guryahooda la gugubo oo iyadoo beesha Samaroon arrintaasi lagu eedeynayo qaybta commentiga aragtidaada inoogu reeb saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan sharaf iyo karaamo soo dhawaada saaxiibayaal